دور علميات كسبسن سيدي bulshada lagu sheegi lahaa ilaalinta diinta iyo doorka ku leedahay culimadu isla markaana lagu wacyigelinayay diiwaan gelinta ka socota gobolka Togdheer iyo xal si rasmi ah looga bilaabay magaalada Burco culimada waaweyn ee gobolka Togdheer iyo hay'adda dacwada al-Karam ayaa ka bilaabay masaajidka Raxma ee magaalada Burco door cilmiyeed oo socod doonta 5 habeen oo xiriir ah ayaa wax ka soo qayb galay inta badan culimada waaweyn ee dalka kuwaasoo ka soo jeedi doona muxaadarooyin u badan dhacdooyinka waqti ee bulshooyinka dhexdooda saameynta ku leh gudoomiyaha hay'adda dacwada al-Karam Sheikh Salmaan iyo xubno kamid ah culimada gobolka Togdheer ayaa sharaxay muhiimadda dowladdan iyo ujeedada iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Silaayana ku amaanay doorku ka qaatay horumarinta dacwada diinta islaamka saballaaran muasasatu karam dacwati wa tanmiya gobolada Soomaaliland oo dhan ayay ka jirtaa waxaanay u taagan tahay sidii Ilaahay kitaabkiisu kor u noqon lahaa litakuna kalimatullaahi hiya al-ulya nadwadan basidaan hore u tilmaanay waa tii toddobaad qadaayad marka waxa weeyaan dacawiya ayaanu doonaysaa muasasadu insha Allah taala in ay marka waxa weeyaan xaqiijiso marba wixii marka taagan ee wadciga yaalana ee marka waxa weeyaan iyadoo uga faa'iideysanaysa yaa qodobka labaad ee ay doonayso marka waxa weeyaan ilaalinta diinta iyo marka waxa weeyaan doorka culimadu ay ku leeyihiin waajibaadkooda diineed inay gutaan 4 habeen insha Allah taala ayay inoo socon doontaa 4 habeenka shanaadna fataawo iyo marka waxa weeyaan wixii marka su'aalo ah ee marka intii ay nadwadu socotay la ka soo baxa ayaa iyadana marka waxa weeyaan habeenka ugu dambeeyana lagu soo gunaanadi doona insha Allah talanaysa muasasadu in ay marka waxa weeyaan mujtamacu xaadiraan oo ay joogteeyaan kana faa'iideystaan inta ay nadwadu socoto inay ilaashato diintaada haysataana waa nicmo inaad ahlu sunna noqotaana waa nicmo inaad muslim noqotaa waa nicmo ha yeeshee nicmadaasi cadow badan bay leedahay oo ku soo weeraraya haddaadan ka digtoonaanin oo weliba dadka Yurub iyo galbeed iyo meelaha ay nagaga soo noqonaya waa laga yaabaa in laynoogu soo dhex dhuunto dadkeenan iska fuqarada iska baahanna in shilimaad loo dhulo waa suuragal aynu meel uga soo wada jeesanno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu weydiisanno inuu xaq inagu sugo waxaa ka mid ah waxyaabaha muxaadaraadka ka muuqda in la soo xukunka maxay tahay in la soo sharaxo manaasibta yani marka ama boosaska siyaasadda madaxweyne inaad noqoto baarlamaan inaad noqoto golaha deegaanka inaad noqoto xukunka shariicada islaamka uga yaal diiwaangelin baa dalka ka socota Soomaaliland diiwaangelin baa ka socota diiwaangelintan dad badan ma fahansana ama dad badan waxay haystaan inay tahay wax shariicada ka soo horjeeda in la qaato kaarka diiwaangelinta waxyaabaha laga hadlayo ummadda ay tahay sharciya waajibka culimadu in ummadda u cadeeyaan bay ka mid tahay in ummadda loo cadeeyo khatarteeda in loo cadeeyo khatarteeda buuca imika lagu sheegaya hageysho waa ogtay rag dacwada ka wada oo kutubtii shiicada يعني waxa weeyaan maaragtay af Soomaali u turjumay in hageysho lagu qabtay oo laga misaafriyay Cabdullaahi Sheekh Xasan Sakro telefishinka madaxa bannaan Soomaaliland Street gudaha magaalada Burco